wax ka baro qisada Cawj bin Cunuq. Wuxuu ahaa ilmihii ugu horreeyay oo sifo sharci darro ah ku dhasha, hooyadiisna waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee zinaysata. Sida aan ka soo sheekaynay, hooyada basharka Xawa waxay dhali jirtay mataano wiil iyo gabar ah sanad walba, laakiinse marba waxaa la yidhi waxay dhashay hal gabar keliya. Gabadhaas waxaa lagu magacaabay Cunuq. Gabadhaasi markii ay weynaatay waxay noqotay gabar caasiyad ah oo waxay ku biirtay Qaabiil iyo qoomkiisii. Waxay bilowday in ay zinaysato oo ay noqoto gabadhii ugu horreysay oo adduunkan zinaysata. Zinadii ayay ku uuraysatay, kadibna waxay dhashay wiil aan la garanayn aabihiis qofka uu yahay. Waxay ku magacaawday wiilkii Cawj. Cunuq fasaadkeedii iyo macsiyadii ayay meeshii ka sii wadatay ilaa markii dambe Xawa ay Allah subxaanahu wa tacaala ka bariday in uu adduunkan dhaafiyo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la yidhi waxaa soo weeraray oo cunay libaax la eg maroodiga. Wiilkeedii yaraa ee Cawj la oran jiray ayaa soo haray, isagii ayaa weynaaday. Nin waxaa la yidhi wuxuu noqday giant ah ama cimlaaq ah oo aad u weyn. Dherarkiisa waxaa lagu qiyaasi jiray baa la yidhi 2,250 mitir. Balliciisuna wuxuu ahaa 250 mitir. Waxaa la yidhi Cawj ugaarta ama dugaagga intuu soo qabsado ayuu wuxuu ku shiilan jiray qorraxda. Daruuraha ayuu intuu biyo ka miirto ayuu ka cabbi jiray biyaha. Wuu weynaaday, wuxuu soo gaaray xilligii Nabi Nuux calayhi salaam. Nabi Nuuxna ma uusan rumayn ilaa markii dambe Nabi Nuux calayhi salaam uu doontii uu samaystay uu ku badbaadin lahaa inta mu'miniinta ah. Allah subxaanahu wa tacaala markii uu roob ka soo daayay cirka iyo dhulka ayuu Cawj wuxuu damcay Nabi Nuux calayhi salaam in uu la fuulo doonta, balse Nabi Nuux calayhi salaam waa uu ka diiday oo wuxuu ku yidhi mu'min ma tihid, gaal ayaa tahay, doontana ma soo fuuli kartid ilaa aad Allah subxaanahu wa tacaala rumaysid. Laakiinse Cawj waxaa la yidhi danka ma uusan gelin, oo biyihii markay isku yimaadeen oo duufaankii uu bilowday, biyihii waxaaba la yidhi ruugaggiisa ma aysan dhaafin, oo duufaankii iyo qaraqii halkaas ayuu kaga badbaaday isagoon doontii la soo fuulin Nabi Nuux calayhi salaam. Wuu noolaa, wuxuu soo gaaray ilaa xilligii Nabi Muuse calayhi salaam. Nabi Muuse calayhi salaam waa tii la amray in uu galo dhulka barakaysan ee Baytulmaqdis, halkaas oo ay ku noolaayeen niman waaweyn oo giants ah oo camaaliqa ah. 12 nin oo 12 qabiil ee reer bani Israa'iil madaxda u ahaa ayuu Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi orda oo taga oo soo sahmiya dhulkaas inta aanan ku duulin oo aanan u dhaqaaqin ka hor. 12 nin waxaa la yidhi iyagoo socda ayaa waxaa qabtay Cawj. Cawj intuu soo qabtay oo laamo ku soo xirxiray 12koodii oo xaaskiisa u keenay buu wuxuu ku yidhi bal fiir waxa inta la eg ayaa doonaya inay annagana soo weeraraan oo nala dagaalamaan. Waxaan samaynayaa buu yidhi lugahayga intaan hoos dhigo baan kulligood ku dul istaagayaa oo ku soconaya. Xaaskiisa marka waxay ku tiri maya saaha samaynina, iska sii daah si ay dadkoodii ay dib ugu laabtaan oo ay u sheegaan waxa ay soo arkeen iyo dadka ay la soo kulmeen. 12 nin waxay isku waafaqeen in reer bani Israa'iil aysan uga sheekayn waxay soo arkaan si aysan u cabsan, balse Nabi Muuse calayhi salaam ay ugu sheegaan keliya. Laakiinse qayb iyaga ka mid ah ayaa ballankii ka baxday oo dadka u sheegay waxa ay soo arkeen nimanka giantska ah ee aadka u waaweyn ee meeshaas degan. waa tii reer bani Israa'iil ay baqeen oo ay yiraahdeen Nabi Muuse calayhi salaam orod adiga iyo rabbigaagu u taga oo la soo dagaalama, annagu halkaasaan kuu fadhiyaynaa oo kuu joogaynaa. Cawj waxaa la yidhi kagama harin halkaas ee waa uu soo dhaqaaqay, wuxuuna yimid meeshii Nabi Muuse calayhi salaam iyo reer bani Israa'iil ay deganaayeen. Kor intuu ka fiiriyey ayuu intuu arkay meesha ay ku fadhiyaan iyo tirada ay la eg yihiin, buur halkan ka xigtay intuu soo fujistay oo iyaga meesha ay joogaan uu ku fariisin karo ayuu kor u qaaday buurtii. Kor markuu u qaaday baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray shimbir. Shimbirtii baa buurta kor ka daloolisay, markaasay intay ku soo dhacday bay madaxa u gashay. Madaxiisii baa meesha ku xabismay. Kadibna Nabi Muuse calayhi salaam ayaa intuu booday oo ushiisa qaatay ayuu ruugga kaga dhuftay, dhulka ayuu ku soo dhacay. Kadibna Nabi Muuse calayhi salaam ayaa dilay. Sheekadaas waa sheeko Israa'iiliyaad ah oo ku qoran kutubta Tawraadda. Mufasiriinta iyo mu'arikhiinta badankooduna way diideen
sababtoo ah waxay ka hor imaanaysaa aayadaha qur-aanka ah. Allah subxaana wa tacaala markuu ka sheekaynayo duufaankii nebi nuux oo adduunkan lagu halaagay inuusan ka badbaadin noolo aan ahayn intii doonta saarnayd maahane. waxaa la yidhi marka Cawj bin Cunuq haddii uu jiray wuxuu ka soo haray reer Caad, maadaama iyaguna reer Caad ay ahaan jireen dad aad u waaweyn oo giants iyo camaaliqa ah.